Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Janan ayaa ka soo tagay deegaankii uu ku sugnaa oo u dhow gudaha waddanka Kenya, waxa uuna soo gaaray deegaan qiyaastii 5 kiiloomitir u jira magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo. Wasiirro, xildhibaano, saraakiil ciidan oo dhinaca dowladda ka socda ayaa maanta gaaray degmada Beledxaawo si ay u soo dhoweeyaan wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo muddo 11 bil ah ku dhuumaalaysanayay kaymaha xuduudda Soomaaliya iyo waddanka Kenya. Janan ayaa deegaansanaya guryo ka samaysan teendhooyin iyo aqallo, waxaana la socda ciidan boqolaal ah oo hubkooda wata. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah shakhsiyaadka la jooga wasiir Janan ayaa ii sheegay inuu wato gaadiid gaaraya 40 gaari oo u badan kuwa dagaalka, ciidan lagu qiyaasay in ka badan 400 oo askari, hub isugu jira mid culus iyo mid fudud. Hantida uu wato wasiir Janan ee uu ku gala gorgortanka waxay wararku sheegayaan in inta badan ay tahay hanti uu leeyahay maamulka Jubbaland, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay diyaarado looga qaadayay Kismaayo iyo meelo kale oo ka mid ah Jubbaland si ay u difaacaan gobolka Gedo ama ay duulaan ugu qaadaan goobaha ay dowladda ciidamadu geysay. Wararka aan helnay ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in wasiir Cabdirashiid Janan ay la socdaan saraakiil ka tirsanaa maamulka Jubbaland oo reer Geda ah, waxaana ka mid ah Korneyl Cabbaas Ibraahim Gurey iyo mas'uuliyiin kale. Maamulka Jubbaland ayaa maanta soo saaray wareegto uu xilka kaga qaadayo wasiir Janan oo ka mid ah shakhsiyaadkii ugu awoodda badnaa Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa si weyn u aaminay Janan, kamana uusan filaynin halka uu maanta joogo, laakiin tani waxay ka mid tahay dhaqanka siyaasadeed ee soo jireenka ah ee Soomaaliya, kaasi oo ah in marba siyaasigu uu meel taagan yahay. In Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan uu la heshiiyo dowladda Soomaaliya keliya dhabarjab kuma ahan Axmed Madoobe iyo maamulkiisa, ee waxay dhaawac culus ay ku tahay dowladda Kenya oo taageeradiisa la aaminsan yahay in ay door weyn ku lahayd islamarkaana ay gelisay dhaqaale badan, awood ciidan iyo qalab militari. Dowladda Kenya, wasiir Janan waxa uu ahaa shakhsi ay ku qalqalgeliso dowladda Soomaaliya, mararka qaarna waxay culays ku saari jirtay xaaladda gobolka Gedo iyadoo adeegsanaysa wasiir Janan iyo ciidamo la socda. Waxaa la aaminsan yahay in Janan uu hayo taatiko iyo khidad dagaal oo dowladda Kenya ah, iyo inuu yahay shakhsi xogaal u ah arrimaha Kenya ee Soomaaliya, islamarkaana aad u furfuri kara qorshaha ay Kenya ka leedahay gobolka Gedo haddii si dhab ah uu ula shaqeeyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ilwareedyo ka tirsan maamulka Mandera ee dowladda Kenya ayaa sheegay in Kenya ay la yaab ku noqotay akhbaarta sheegaysa in Janan uu la heshiiyey dowladda Soomaaliya, taasoo shalay si weyn loogu baahiyey warbaahinta iyo baraha bulshada ee internetka. Odayaasha dhaqanka ee Mandera ayaa arrintan u arka tallaabo wanaagsan maadaama uu kaga degayo culayska ciidanka Cabdirashiid Janan ee la joogay bilooyinkii la soo dhaafay.